بسم الله الرحمن الرحيم ملك سيد أدونك جوتان السلام يا دمانتين يدد كيجو حران كل جنبه سببت عن هذا أصدق المقال كم حويان إن النو ذاقو وندين حقيقيو بريتو لهدو إلى نفط نقدا وتعرف تكوبيجان تهاي سيدة بيشة جنوري إن قدر كيو وحرية سيدو هلدانو أسوق مركز كسوة جهان مقالة مقدشو سببها فنانكو مدة ويجا كله يولي بهافكو وحرنا وحصلنا إن شاء الله دب أيام لقى فافين دونا أسرعنا وفافين دونا أنا وندب أنك فافين دونا سيدا دكتين فنانكم دوين كي قدام بيوحوا حنا مقالة أديس أبابا تاس أو ضد معرتي أسكو هولين إن حرية ديسو هلا أدوان وقف فرحسن يعني كعبد الدان تاهان كنتي ولس بدن بيجوا هاي درينتيسا وقت بدن إيو تدار بدن نوان كوبحية سيدا أنا شخصيا تدا أنا وقف قادن لها إن حرية ديسو هلا إن شاء الله درتان واحد رجينا إني هوشة سي صار دماتي وين دماتي بقى مركا أنت أسمرك اللي جسوا قدوة حفصك حويان ضدك قف رقم بالوسمي عما قف كان الحرة لكن waxyaabaha technicalka oo dhacay oo farsamada ku saabsanaa ayaa waxa jiraan dad siyaabo kala duwan uga hadlay oo siyaabo kala duwan oo u badan been abuur maaragtay u baahiyay qaarkood iyagoo dhahayaan wadan kale safar ku ahaa qaarkood iyagoo dhahayaan baasaboorro kale watay laakiin alcumuum waxa soo dhan markiin si caadi ah live aan ku sheego waxaan idin leeyahay arrimahaas oo dhan waxba kama jiraan intaan aniga ku ogaa anigoo waliba si hoose oo khaasa wax badan ugu ogaa arrimaha maaragtay ka dambeeyay yarka walaalkay saaxiibka qadarkeeyo xarigiisa marka sababta haddaan idin la wadaagay aan weegan iyo maalmahan uga aamusnayn waxay ahayd in xaaladaas la dajiyo oo dadkan siyaabada kala duwan uga hadlo uga maaragtay uga falcelinayay in maaragtay aan ku xakamayno aamusnaanta taasoo noo suurta gashay hadda waqtigii meeshii ugu fiicneed in maaragtay hadda aan soo gaarsiino oo maxaa la dhahayay hawshiina ay si guul ah ku soo dhamaatay marka waxaan idin rajaynayaa insha Allah in si fiican loo soo dhaweyn doono waan sameeynaa qabanqaabo xoog badan oo maaragtay si caadi ah ugu soo dhaweynayno anagoo dareensiinayna inuu yahay walaalkeen aan aadna uga xumaanay waxyaabihii uu halkaas kala kulmay iyo maaragtay falkii lagu kacay intoodaba marka arrimahaas oo dhan marka waxaan hadda faahfaahinta uga bixiyay waa isla maaragtay in aan maaragtay wax badan kala socotaan idinkana kurbada iyo idinka yaraato hal dhahay walwalka tirada badan oo iyo su'aalaha badan oo aad isoo weydiinayseen iyo dadka siyaabada kala duwan su'aalaha isoo weydiinaya midka oo runtii ay ii suurta galin in aan maaragtay aan la wadaago ama aan inaan la wadaago ama aan uga warbixiyo xaaladda dhabtay jirto taas oo aan uga gaabsanay sabab jira awgeed marka hadduu rabbi ku idmaa insha Allah sida hadda kulli qadarta rabbi halkeeda laakiin sida hadda boqolkiiba 95 ay isugu soo biishobatay berito 8 subaxnimo oo ku beegan bisha 8deeda berito garoonka Addis Ababa 2 saac subaxnimo wuxuu ka uu maartay ka soo bixi doona magaalada Addis Ababa sida caadiga magaalada Addis Ababa diyaaradu waxay ka soo baxdaa 9ka magaalada Muqdisho waxay timaadaa 11ka ama 5 saac oo barqinimo ilaa caawa waxaanu bilaabaynaa in dadaalo aan maaragtay aan ku diyaarinayno si soo dhaweyn aan ugu sameyn lahayn ama maxaa la dhahay aan halka si uu asagana uu warbaahinta halkaas uga hadlo sababaha iyo maxaa la dhahay xaaladiisa dhabta uga hadlo insha Allah marka waxaan rajaynayaa hadduu rabbi idmo hawsha sidaas isugu soo dhamaanaysaa waxaan idin leeyahay Soomaaliya hasraacda noolaato fiidiyogan hadduu idin soo gaarina si share gareeya channelkeena subscribe la saar like comment intaba hala dhaafina waan idin salaamayaa